kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale asxaabta ku xiran janaalkan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhiirigelintiina sida muuqaalada aad like u saaraysaan sidoo kale intoodna janaalka aad subscribe u saaraysaan haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee soo booqatay janaalkan ama muuqaalkii ugu horreeyey ee kaasoo horbaxa uu yahay ogow muuqaalkan waa muuqaal wax badan noloshaada doona waxaad ogaataa in intaan yar kumanaan lacag lagaaga qaadanayo adigoo suuqiina haddana waqti fiican aan lagu siinayn adigina ay kaa buuxdo lacag samey lacaga badan aad suuqa iskaga khasaarayso laakiin keliya waxaa muhiim ah in aad heshid only istiraatiijiyadaasoo dadkii adiga kaa horreeyeen ay soo tijaabiyeen sidoo kale intoodna faa'iido ay ka sameeyaan hamoodin macnaha in faa'iido maalin walba halkan laga sameeyo everyday waa boqolkiiba 1% ayaa everyday faa'iido ka samaysata marka waxaa ogaataa dadkaas 1%ga inay isticmaalaan qaacido discipline ay leeyihiin waqtigay sugaan maanta oo dhan ay suuq analyze garayaan way fadhiyaan way sugaan wabacdeen ayay qaataan mararka qaar waxaa dhacaysa xataa asagoo intaa sugaya inuu halkaas trade khasaaro suuqiina uu iska helo maalinta kale uu imaado soo marka haddii aadan sidaas ahayn ogow suuqan lacag ma ka samayn kartid qaacidana kuma shaqaynaysa maxaa yeelay adiga dhan waxaa kugu qunfulan lacag soo isdeji tartiibka waqti qaado waxa aan kuu sheegaynay meel ku qoro qalin soo qaado buug soo qaado ku qoro suuqan saa ujeedid waa OTC market lacagtuna waa euro JBP suuqan saa ujeedino waa down trend waa suuqan wuxuu ahaa down trend halkan ugu hooseysa waxa waaye liquidity is resting here laakiin horizontal line-ka madowga ah waxaa jirto another liquidity uu suuqa uu soo jabsaday halkan aan kugu qoro marka there is also liquidity here halkan waxaa jiraan ku dhahay another liquidity kale and market broke this liquidity sidoo kale intoodna suuqa uu soo jabsaday liquidity-gan because of the market structure sababtuna wax kale maahane waa structure-ka ama qaab dhismeedka suuqa ayuu u soo jabsaday halkan maxaa yeelay suuqu wuxuu sameynayay lower high saa ujeedina marka masti waxaa ah in lasoo jabsado halkan wuxuuna usoo socdaa liquidity-gan suuqa candleka madowga oo halkan falaarta dhanka bidix falaartaas meesha ay ku qoran tahay liquidity is resting here halkaas ayaa waxa uu ku nasanaya liquidity halkaas ayuuna suuqa usoo socdaa jartigan waa M5 jart ayaa sidan uga soo analyze garaysatay kadib waxaa lagu dhahay I place my trade before strategy breakout of the liquidity suuqu markuu uu soo jabsaday kadib waxaan u qaatay dhankaay M1 markaa imaaday uptrend ayaan u qaatay suuqaas M1 markaa imaano marka suuqu sidoo noqonaya aan isla eegno halkani waa M1 waa isla lacagtii euro JBP laakiin waxay u kala duwan tahay 1 minute waa kii haddaatay suuqa aan ka analyze garaynayna wuxuu ahaa 5 minute okay halkaa markaa imaaday liquidity-gii black horizontal line-ka halkan waay so candlekan uu isku xiray gaduudka ah ama akhtarka ah candle kale oo akhtaraa soo jabsaday soo marka candlekan kale aan waxaa is dhahay confirmation-kayga sug kadib qaado laakiin waxaa samaysmay doji candle haddii uu samaysmane waxaa masti ah in aad suuqaas another confirmation kale aad sii sugtaa maxaa yeelay doji candlekan suuqa waa indecision macnaha buyerskana awooday ku leeyihiin sellerskana awooday ku leeyihiin laakiin xaaliyan hadda wuxuu noo caddaynaa in suuqa jihadiisu ay sii dhammaanayso ay daciif sii noqonayso okay markii doji candlekaas aan arkay waxaan sugay another candle kale confirmation ah candlekan aan trade ka qaatay oo greenka ah candleka ka dambeeya candle ka horeeya candle ka dambeeya aan dhihi sorry doji ku xigo aan sugayay waxa uu noqday weak red candle okay markaasba waxaa ii caddaatay suuqan in jihadiisu ay noqon doonto dhanka iyo down uptrend ayay noqonaysaa so tradekeydii ayaan qaatay boom waxaan u qaatay dhanka iyo uptrend 4 daqiiqo marka aan ku leeyahay ama B4 marka aan ku leeyahay waa power 4 waxaa laga wadaa 4 candle ayaa ku soconayso suuqaas jihadiisa ayaad helaysaa marka dambe soo warka waxaan ku dhahay meeshan waxaan ku qoray power 4 strategy
after breakout of the liquidity macnaha waxaan isticmaalay power 4 kadib markii lasoo jebiyey liquidity oo ay soo jebiyeen 1 2 3 kanalkii afraad ayaan waxaa u qaatay dhanka ay abtireen haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay soo boqotay janaalka waxaan kaa codsanaa janaalkan inaad subscribe garaysid sidoo kale intood asxaabtaada u share garaysid commentiyiinadii aa arko mac salaama